maanta kiiskaas waanu galay anigoo ka wakiila amarka ciidamada waxaanu horgeynay eedii iyo maragyadii iyo qorigii uu eedda ku galay iyo evidence-kii wixii kiiska la xidhiidhay waxaanu maxkamadda horgeynay maanta oo ay taariikhdu tahay 7 bishii sanaad 2023 maxkamaddu waxay ka soo saartay go'aan arinta markii ay dhageysatay xafiiska xeeraalinta ee ciidamada Jamhuuriyadda Soomaaliland xukun bay ka soo saartay xukunkaas oo noqday dil toogasho maanta maxkamadda darajada kooda gobolada galbeed waxay xabsiga dhexe ee gobolka Awdal ku dhageysatay eedda loo haystay gacan ku dhiigle ku xidhnaa xabsiga kaasoo faldambiye dil ku geystay lawiyacdo oo ka tirsan Saylac dacwadda maxkamaddu markay dhageysatay eedeysanaana eeddi loo akhriyay si buuxda ayuu qirtay inuu dambiga galay waxaanu xafiiska xeeraalintu qiraalkiisa ku kaabay laba markhaati oo si buuxda u cadeeyay goob joogna ka ahaa markii falkaasi dhacay saasaanu kiiskaas ku cadaaday dabadeedna maxkamad ahaan waxaanu ku dhawaaqnay go'aankii maxkamadda oo noqday dil toogasho sida waafaqsan qodobka 434 xeerka ciqaabta guud lala akhriyo ama ay la macno tahay sida uu dhigayo aayadda Quraanka Kariimka ee 54aad ee aayad suuratul Maa'ida ku xusan sida ayaanu ku xusnay marka waxaan la socodsiinaa cid kasta oo kiiska danaynaysay ama dhinacyada eegayayba in arintaasi sida u dhacday wixii kale tallaabooyin xeerku dhigayna degdeg ayaa loo wada qaadayaa